السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له يوم ميل أجوكتان بوادي السلامي ومر لباد إيو أمستردام إيو قصة عصب waxaan rabaa qisadan markaan soo gudbiyo inaan sheego sababta aan qisaskan u soo gudbinayo hadda ka horna anoo maraya Amsterdam aan qisooyin kala soo gudbiyay wadamadan Yurub oo hadda aan transit ku ahay qisada aan rabo inaan maanta sheego hadda ka hor waxaan idin sheegay laba qiso anoo halkan maraya qisadii wiilkii isku daray geedkii Christmaska iyo geedkii timirta ahaa iyo gabadhii labadii gabdhood ee Soomaalida ahayd aan sheegnay inay yihiin ay yiraahdeen waxaan nahay qoys iyagoo aan qoys noqon kareynin isguursaday waxaan rabaa qisada maanta aan rabo inaan idin sheego waa qiso runtii aad u xanuun badan waana qisooyinka runtii iigu xanuun badan marka la weydiiyo waxaynan ujeedada aan u leeyahay waan sheegi doonaa waxa maalmaha kamida iigu yimid masaajidka anigoo fadhiya Masjid Abu Bakr Islamic Center of Washington wiil Soomaaliyeed oo garanayo oo ardaydii wax baratay iyo dadkii wax bartay ah wiilku wuxuu yiri waxaan rabaa Sheekh Axmed inaad gabadh ii meheriso oo ii guuriso waayahay baan ku adeer imo balance waraysano markuu ii yimid waxaan gabadha waxa loo baahan yahay wilaayadeedii gabdhaha la iska meheriyo waa in aabaheed aan helo ama walaalkeed wuxuu yiri aabaheed muslim ma aha waxaan ku iri wiilkii marka halka markuu maraya baan dareen intuu ii qabtay baan damcayna wiilkii wacdiyo waxaan adeer soo ma fiicina inaad gabadh Soomaali ah oo muslimad ah oo dadkaagii ah oo kala jarkaaga aad garan oo diintaada aad garan aad guursato si ay ilmo kugu dhasho kuguna tarbiyeyso aad ku kalsoon tahay soomaha boona qof diin la inaad guursato marka waa halkan mushkiladu meeshay runtii ka dhacdo wiilka arintiisu igu noqotay arin weyn wuxuu adeer ma aniga ayaa ku keenaya qof aan diin lahayn waxaan iri hay gabadhu muslimaad miya maya ma aha oo maxay tahay waa Christian way Masiixi way kaniisadana way aadaa hada diin bay leedahay oo diinteedii way aadaa kaniisaday tagtaa waa qof diin leh anigu qof aan diin lahayn ku keeni maayo marka arinta yaabka igu noqotay waxa weeye walaalayaal wiilkaas waxa u maraysaa muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo yahuudu dadka ahlu kitaabka kuwa la yiraahdo muslimiintu inay isagu mid yihiin inayna diin leeyihiin ilaa hada alxad oo gaadhay Soomaalideen iyo dadkeen ay gaadheen waa mid marka murugta runtii igu keentay in wiilku ay la noqotay inay isku mid yihiin يعني وانا meesha uu gaadhay iyo kala jar ahaan iyo dhaqan ahaan iyo sida ay la tahay marka arintaasi runtii waa arin aad iyo aad xanuun u badan arintan rabo marka inaan u soo gudbinayo qisaskan maxay tahay ujeedadaydu waxa weeye waalidka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedkoow ha isku halmaamina dad baa inaga horeeyay way is halmaameen wayna ku tageen waxayna la bixin caruurtoodii maanta waxaad arkaysaa David Cabdiraxmaan iyo John Cabdullaahi sida qubuuraha marka la taga lagu arkaayo marka awowgii iyo aadawii ka horeeyay oo muslimiin ah kuwa ka dambeeyana ay yihiin practic baan u haysaan oo madaxweynayaal iyo dad badan u jeedaan oo asalkoodii wada muslimiin ah laakiin ku tagay marka yaan la ishalmaamin waan ogahay wadamadeena inay mashaakil badan iyo problem iyo dhibaatooyin ka jiraan laakiin insha Allah ta'ala waxa qofka muslimka uu ilaashado diintiisa ugu weyn marka xilli ay noqotaba yeenan ishalmaamin yeenan niyad u dagin yeenan dadku noqonin dad oo is ilaaway oo arkay inay yihiin meeshan moogay meel kale inay ku noolaan karin xilliga ay noqotaba ha tagtay insha Allah ta'ala arintaas aan rabay inaan u soo gudbiyo waana dareen aan rabo waalidku inuu qabo oo ku seexdo oo ku soo toosto xilliga ma oran karo waqti hebel laakiin adigu inaad is halmaamin ayaan u soo gudbinayaa qisada wa ma santiin mar labaad جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته